munaasabad lagu duubayay nabadoon maxamed dhiblaabo qoorgaab ramadaan ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho. munaasabadan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qayb galay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, waxgarad iyo weliba siyaasiyiin iyo ururada bulshada rayidka. ugu horeyn ayaa ujeedka munaasabadan waxaa sharaxaya xaaji cali maxamed guuleed. xafladan quruxda badan oo maantay duqa lagu duubayo Ramadaan maxamed dhiblaawe qoorgaab Ramadaan loo yaqaan. Ramadaan dadka wada yaqaan afka bartay marka waa naynaas. intaas kadib waxaan u mahadcelinayaa walaalaha sharafta leh, qiimaha leh, na soo siiyay waqtiga qaaliga ah oo aan la ilaabi karin, oo inta wacnay naga aqbalay waqtigoodii noo horay sharafta lahay ay ku nasalahaayeen ama ay adduunyo ku qabsan lahaayeen. mahad gaara ayaan uga celinaynaa. sidoo kale munaasabada ayaa khudbadooyin dardaaran ah oo waxaa ka jeediyey qaar ka mid ah nabadoonnada iyo weliba odayaasha dhaqanka ee bilweynta Wacisle oo ugu horeeyo nabadoon cali xasan cali jeesto. maadaama guddigii Wacislana aan ka mid ahay, odayaasi Wacislana aan ka mid ahay, dadkay ku soo hormareen oo goobta keenana aan ka mid ahay, waxaan rabaa inaan Wacisle u soo gudbiyo oo iga aqbalaan amba naga aqbalaan Jimcaale Macallin oo Ramadaan gudoomiye u yahay amba nabadoon u yahay, oo maanta kadib amba duble loo goobayna foolkooda u madax bannaan oo ximinta Wacisle iyo fadhiga Wacisle ximintooda ku leh oo xaajadooda ku leh ayaan rabaa inaan soo gudbiyo. Wacislana waxaan ka codsanaynaa inay sidaas nooga aqbalaan. nabadoonka guud oo gudoomiyaha u noqon hayana Ramadaan dhiblaawan oo naqiinay maxamed hore hadda marka hore Ramadaan buu noo ahaa, laakiin maxamed dhiblaawe nabadoon maxamed dhiblaawe nin aad ugu weyn oo culus buu dhexdeeda ka ahaa markiisii horeba. walada soo dooratana maanta nin miisaan leh, nabadoon miisaan leh inuu yahay oo aakhirada adduunka buu kala soocantaan qiraynaa haddaan ahay kulli shakhsi ahaantayda. marka waa soo dhaweynaynaa, hambaliyaan leenahay, waa aqbalnay baan leenahay, waana soo dhaweynaynaa. aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. midnimada Wacisle waa lama taabtaan, in wax kusoo siyaadaanna waa loo baahan yahay. in siyaadada Wacisle lagu farxana waa mid mudnaanteeda leh. aad baan u soo dhaweynaynaa. marka mar waliba waan soo dhaweynaynaa. waxaan ku soo dhaweynaynaa golaha dhaqanka ee Wacisle horay uga mid ahay nin ugu cusub oo hadda anagana lagu soo beeranayo maaha. marka ninkii oo horay golaha uga mid ahay xoogaa catar iyo barafuun iyo saliida noo marisaan kaliya iyo gogashaan horay uu joogay golaha dhaqanka uuna ka mid ahay. haddee marka inuu ka mid ahaado golahaas dhaqanka mid hadda oo nalaga tuugayo ama nalooga tacsiyeynayo maahan. sidaasaan leeyahay, waana aqbalsannahay haddii oo golaha dhaqanka Wacisle aan ah. ugu dambeyn ayaa munaasabada waxaa soo gabagabeeyey nabadoonka cusub nabadoon maxamed dhiblaawe qoorgaab ramadaan iyo weliba gudoomiyaha dhaqanka bilweynta Wacisle maxamed cabdi shido. dadkii igu idmaday inaan hawshaan haddii uu qadaro ayagana igu duceeyaan, Wacisle igu duceeyay, ayaguna igu duceeyaanna aadaan u rajeeyaa insha Allah. waxaana isleeyahay anugu hadda guddiga kuma cusub, dhaqan kuma cusub, dal raadihay mi oo waas wada fahmi karnaa. guddiga Wacisle haddaan ka horna ku buuxo, haddaan kadib inaan ku caawiyo Allah ka ilaaliyo. waxaan jecelahay inaan mabda iyo wabda gudoomiyaha iyo guddiga dhaqanka Wacisle aragtidooda inaan ku shaqeeyaan rabaa, iyo aragtida beesha ay soo duubato Jimcaale Macallin. reer Jimcaale xadaarad ahaan waa dad reer beleda, waa dad ilbaha. waxaan ku dardaarmaynaa marka duqa waa in garbihiisa haddaba juudiyaa lagu soo baxshay, dhaqaale lagu soo baxshay, burasiijar dheera la soo marsiiyey. marka inta dhimanna waa dardaaran guud. duqa laftiisana ka caali maayo inaan inta la dardaarano qabiilka duqa aan ka aamusnana maahan. duqa laftiisa markaan hoos isugu dhowno aniga asiga meelaan iskula dhalannay. reer dhagaxu marka waa fudud yihiinaa la yidhaah, farasyoonaa marmaray ka kacaan.
asiga laakiin waa ka badbaadiyay farisiyonas inuu ka kaco marka samar badan iyo dulqaad badan haddii uu ku jiro cidda shariif iyo haddii sheekh ku jiro iyo haddii alkoolista ku jiraba duq guudaata cid kasta waxaa rabaa markaan inaad u yeelato dhegaysi badan dulqaad badan samar badan wax allaala wixii aad maqasho markaan wixii ka dambeeya cawada xantaada xooga u bilaabanaya cabdiraxmaan kambaale goobjoog muqdisho